السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel walba dunida ka joogtaa fadlan kusoo dhawaada YouTube channelkayga Cabdikariim Daahir. Barnaamijka maanta aan soo bixinaa wuxuu noqonaa wax loo yaqaan dark mode Facebook-gaada inaad dark mode aad ka dhigatid waxaa isticmaalaynaa app. ugu horreyn hadda waxaan galaa Facebook-gayga. Facebook-gayga galaada waa isla aragnaa waa white. waxaa la soo degaa Play Store-ka ayaan galaa app ayaan la soo degaa kaas ayaa Facebook ka isticmaalaa. meeshan qaybta kore ee searching-ka waxaa ku qoraynaa Maki MAKI markaan qoro isla markaa asiga soo booday Maki for Facebook and Messenger dark mode. waxaa dooranayna midkaani ee calaamada buluuga ee M-ta ee ku qoran tahay midkaas ayaan dooranaa. install telefonka ayaa ku shubanaa. hadduu dhameeyay marka waxaan dhahaa open appka ayaa guda galaynaa. appka markuu soo daarmo meeshaan waxaa ku qoran welcome to Maki. waxaa dooranaa dive in. markuu soo daarmo sida Facebook oo kale wuxuu kaaga baahan yahay username-kaada inaad gashatid ciwaankaada iyo password-kaada. aniga hadda waa geliyay login. marka Facebook-gayga waxaa ku xiran factor authentication code ayaa ii soo dhacay. marka hadda telefonkayga maadaama ka isticmaalayo kaliya ma hubtaa u dhahaa yes. haddii aan dhaho no ma shaqeynayo. okay appka markaa soo gashid qaybtaas ee profile-ke waa calaamada qaybta hoose kuwaan hoose profile-ka midka dhanka midig jira dooro. waxaad ka sii doorataa setting. waxaad sii dooranay general. kadib waxaad xulataa theme. waxaad doorataa AMOLED oo MOLED de. kadib waxaan dhahaynaa back. dib ayaa u laabanaynaa back. hadda isla markii uu isbedelay Facebook-gayga wuxuu noqday dark mode ayuu noqday. hadda xoogaa habeenkii oo kale indhahada oo kale iftiinka inuu ku dhaco dhibkeeda ay leedahay. dad badan waxaa arkay ayagoo yar oo kiyaala wata. marka hadda laakiin soo kee waaye iftiinka ka yaraanayo. Messenger-kan uu leeyahay appkan sidoo kale wuxuu leeyahay Messenger. ma kaaga baahan inaad Messenger gooni u soo degsatid. Messenger-na uu leeyahay